oo lagu soo gaabshay structural query language waa language loogu talagalay database waana language aad muhiim u ah la'aanteeda aanan soconaynin database-ka course-gan intaan ku guda jirno waxaan ku bari doonaa ama aan kala faa'iideysan doonaa wax walba adiga aad u baahan tahay inaad ka ogaatid language-kan oo loo yaqaano structural query language oo loogu talagalay inay la falgasho database-ka waa query language oo aad u qiimo badan aadna muhiim u ah weeye ama casrigan la joogo si zaid ah loo isticmaalo kambaniyada inta badan kambani aanan isticmaalaynin aad buu u yar yahay marka SQL waa language waaye oo loogu talagalay ama loo isticmaalayo si loola falgalo ama loo isticmaalo relational database management system wax loo yaqaan relational database management system xaqiiqdii wax kale ma ah waa software applications waaye waa applicationo waaye oo loo isticmaalayo si loogu abuuro database si loogu manage gareeyo ama loogu maareeyo ama loogu qaabeeyo databaseyo kala duwan si loogu isticmaalo loogu talagalay waaye marka waxaan ka hadli doonaa yani koorsatan intaan ku guda jirno in badan waan ka hadli doonaa in badanna yani waan baran doonaa hadii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka raali noqdo intaanan marka aan sii gudagelin marka ugu horeyso waxaan ku bilaabaynaa basiga ama waxyaabooyinka asaasiga u ah koorsadan ama SQL asaasi u ah ayaan ku bilaabaynaa marka ugu horeyso waxaan kala dhigaynaa waxa loola jeedo database-ka noocyada uu kala baxo iyo SQL-ka ama language-kan oo loo isticmaalayo database sida loo isticmaalayo sida loogu abuurayo database-ka kadibna waxaan sii gudgali doonaa qaabka ama aan ugu shibanayno relational database management system software-da loo yaqaano software kamid ah oo aan koorsadeen aan isticmaali doono oo loo yaqaano PostgreSQL marka in badan waxa laga yaabaa inaad maqasho relational database management system ha ku wareerin relational database management system waxa loola jeeda ayaa waxa ay tahay software-da ama software applications-ka loo isticmaalo data ama lagu keediyo ama lagu abuuro ama lagu delete gareeyo ama lagu update gareeyo iyo wixii la mid ah ayaa waxa loo yaqaanaa relational database management system marka waxaan yani baranaynaa horta waxyaabooyinka ugu muhiimsan ee basiga waa SQL medical niche SQL programming language ma waa query language waa qaab weydiimo ama su'aaleed loogu talagalay in loo isticmaalo yani database-ka marka ugu horeyso waxaan baranaynaa wax basic u ah ama yani halbeeg u ah koorsadan SQL-ka then kadib waxaan sii baranaynaa topic-yo ama ciwaano oo advanced ah baran doona hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka raali noqdo yani kadibna marka ugu dambeeyso koorsadeenan yani waxaan baran doonaa qaabka loo design gareeyo database schema-ga qaabka loo design gareeyo ayaan baranaynaa database schema wax kale ma aha waa noocyada kala duwan ee tables-kan waa arki doonaa iyagana qaabka ay nooca loo abuuro iyo qaabka ay u egyihiinba tables-ka waa يعني tables-ka markii la sheego relation database-ka waxa waaye waa meesha data lagu keedinayo waaye oo data lagu keedin doono ayaa tables loo yaqaan SQL sida aan ku soo sheegnay waa structural query language waa language oo loogu talagalay computerada waaye si loogu keediyo loogu controlo data loogu keeno ama loogu soo bandhigo meesha ay ku keedsan tahay oo relational database management system software loo yaqaano relational database management system applications-keeda ayaa waxa kamid ah MySQL MS Access Oracle Sybase Informix iyo PostgreSQL oo anaga aan rabno inaan koorsadeena aan ku isticmaalno marka su'aal aan isweydiino oo su'aasha meesha taala waxay tahay maxaa oo popular ka dhigay SQL maxaa caan ka dhigay hadda su'aashaas aan isweydiino jawaabteedu waxay noqonaysaa SQL waxay u ogolaanaysaa dadka isticmaalayo inay datadooda ku galaan waa furihii datada lagu gali lahaay oo ku keedsan relational database management system software loo yaqaano datada ku keedsan waa furihii lagu gali lahaay weeyaan ama waa furihii waxaad dhihi kartaa relational database management system software applications loo yaqaano furihii lagu gali lahaay dadka isticmaalayo waxay u ogolaanaysaa datadooda dadka isticmaalayo waxay u suurtagelinaysaa inay ku qeexaan ama datadooda ay qeexaan oo ku keedsan
database-ka si ay u controlaan datadaas. Marka in badan oo kamid ah SQL waan kasii hadli doonaa haddii Ilaahay subxaanahu wa tacaala ka raali noqdo. Marka ama hordhac ayaan ugu talagalay darsigeena darsiga xiga waxaan sii gudgali doonaa qaabka softwarekeena aan u baahanahay koorsadeena inaan ku practiceyno qaabka aan u shiban lahayn ayaan sii gudgalaynaa haddii Ilaahay subxaanahu wa tacaala ka raali noqdo insha Allah. intaan darsigan darsi lamida aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi